السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الله في القراب وإذن سلام ميل وبعدوك كجوكتان ولكن عند افتاح وإذن مركلة iyo qaybteena sideedaad maanta insha Allah biidin ilaahi hadii la yiraahdo muhiimada ugu weyn waxay tahay insha Allah mar walba waxa la soo weydiiyaa intaan zaid waliba la soo weydiiyaa saliida waxa ka daranayo baalkan zaid la soo weydiiyaa baarkan dermalolkan isticmaalayna la soo weydiiyaa dadka qaar waxay rabaan iska soo qoraan laakiin warkooda kuma jirno dermalolka sida maan la weyd baa idin sheegay guys labadan dermalol farqi weyn u dhaxeeyo فرق وين أو لهي أنا واحد معاً لأنه استعمال كود واحد استعمال كود وين كان وايدين شيء ولت وإيزي عربدي سنة ويجري حاجة استعمال كي سنة وإيزي كان عربدي سوا وين حاجة و 0.5 كان نفترض 0.5 بأمريكان كذا لكن فرق يقول هاي الوضع اسمه لها بعوض هذا مركب في كان وحير يرير سو مركا 0.5 كان انت بدن هذا انا الحمد لله مدحيغا قيبتان كوردنا دوا سو لابتay kulli qofka arkaya waa arkaya qaybtan kordhan way soo laabatay qaybtan xaado soo yeeshay kulli hada saas markaan dhaho kulli qofku ujeeda awal wajigayga kale ahayd waxaada ma lahayn waxtina ma lahayn ilaa meeshaas ay ahayd sarxiga midkan kalena sidoo kale ilaa halkaas oo ahaa meeshaas wixii ka dambeeyay inta caadiga ah soo baxday intana sidoo kale hadda caadi soo yeelatay ma sha Allah soo marka kan hadda inta majority waxa uu isticmaalaa meesha tinta leh si fiican ma sha Allah waa dareemaya si fiican aan u dareema dhalinyaro badan ay soo weydiisay qaabka loo isticmaalayo oo shalamiya ma lagu shalayna ma waxayna waxaan shalama ma waa shala amal waayo waa cirbada yar yar laakiin cirbadahaas yar waxa laga rabaa marka ku shalaynaysid haddaan saan dhaho hadda waa marinoya shala amal oo marinoya laakiin nothing waxa ma dareemoy laakiin markaan saan dhaho waa aan madaxina ku dhajinin wixii inaa isticmaalaya aan ka dhigo cirbadaha madaxa jak inay siinayaan waa dareema mafahant laakiin saas inaan dhahay ku dhajiin ku soo jiido laana saa markaan dhaho ku dhajiyo waa isdhaawacaysid waa wixii cirbad inaa meesha ku mudaa ku soo jiiday waa jeexay marka madaxi laazim laana waa cirbad meel inaa surtay ay ku jiiday meel marka cirbad surto ku jiiday seen qane way jeexmay soo marka waxa waa cirbado madaxa inaa ku dhajisidoo jiidid ma loogu talagalin madaxa saar laakiin kuwad sida garaangarta caawa baashireedo carruurta markay ceerinayaan la ceerin jiray oo kale u ceeri tartiib adigoona ku dhajinaynin zaa'idna ugu dhajinayn zaa'idna uga qaadaynin mafaanta madaxa dhag cirbad yaroo meesha juq ku siinaya oo meeshaas in yar lagu gugujinayo inaad dareemaysa isku day taas waa muhiimadda laga leeyahay mafaanta marka maasha Allah asaga meeshaas aan u isticmaalaa oo tinta leh ujeedaa meesha tinta leh si fiican ugu isticmaalaa soo marka asaga meesha tinta leh si fiican ugu isticmaalo oo madaxayga si fiican ula qabsaday maasha Allah oo dhag naqday oo aan dareemay laano dada hadda waxay soo weydiiyaan maamaha madaxa waxa ka kacaya qolof busaa ka kacayso waxbaa ka daadanaya maxaa ku sameynaa kulligeen way ka kici jirtaa wal hadda ma ugu jeedaa madaxayga qolof wax yar way ka daadanayaan laakiin sida hore maaha macnaheedu waxay caddeynayaan qolofta intii badneed madaxa saarneed oo wasaqda ahayd way ka dhacday ma fahamtay hadda tinti la soo baxayso marba ka dambayso damarolkane ilaa bishan 40 aan ka gaaro si fiican saana ugu wadaaya laana marka tinta inay isla soo wada qabsatay aan arko oo maasha Allah tinta isla soo wada baxday markaas waa ka nasana dermalolka markaas waa ka nasana laakiin inta dermalolka oo madaxa aan ka dareemayo inuu si fiican iskala soo qabsaday dermalolka waa muhiim laano saliida markaa mariyo aan ku buufiyo oo dermalolka caadiga dermalol aan saliida aan isticmaalo dad badan oo isticmaalay ee soo dhalatay way jirtaa mafahant dad badan oo isticmaalay soo dhalatay way jirtaa laakiin markaa dermalolka isticmaalaysay markaas way kala duwan tahay dermalolka wuxuu ka saacidayaa meeshii hal tin ka soo bixi lahayd marka hore in laba tin ama saddex tin ay ka soo baxdo isku dayaan laano wadooyin kale oo furaya halkii wado furneed maahan wado kale oo furaya laakiin saliidda kaligeed markay tahay hal waxaa laga yaabaa madax markaa ku celcelisid maalin walba inay meelo soo furfurto oo sida qofka Turkiga ka yimid oo kale madax kale taataagan oo xoogaa kala dheer inay kuu soo baxo oo tintina ay side sidii marka hore aysan shuk u ahayn
laakiin kan hadda majority waxay u badan tahay boqolkiiba 90 madaxayga inteedana ka dareemaya hadda shug waa shug marka tin oo khafiif oo halal xabeema way soo badatay soo markaas intaas uu ka saacidaa darmalolka intaas uu ka saacidaa muhiimadana waa intaas qofka wuxuu kaliya u orday waxay tahay madax is haysto inuu soo baxo oo madaxiisa dhan oo is wada haysto maasha Allah oo arka bari taasna waxaan anaga dhan wada ordayno waa fahanteen soo ma kan marka kan wuxuu zaid u anfacayaa oo zaid u anfacayaa qofka koo bilaaw oo madaxiisa alaabta sidaani leh ama salaxahan raba inuu isticmaalo oo salaxahan eberka zaidka ay yihiin qofkaas waa anfacaa maxaa yeelay salxii waa meel aan tin lahayn meesha aan tinta lahaynna si fiican u qabanaa asaga ma fahamtay meesha aan tinta lahayn si fiican u qabanaa soo marka muhiimadiisu waa intaas meesha aan tinta lahayn ma jeedaa asaga si fiican ugu xoqi mana ku dhaawacayo sida kan oo kale oo dhibco waaweyn ku dhaawacayo zaa'ida ma lahan jeedaa intana sidoo kale خلاص muhiimadu waa intaas waaba la qabsada maasha Allah berihii hore waxa waaye zaid u idhibaay kaas kale laakiin kan hadda meeshaan eberta ah oo caadi ka soo baxday maasha Allah waa loo bogay isaga loogu bogay waliba si caadi ahna loogu bogay maxaa yeelay xanuunkiisa waxa waaye zaid ma ahan madaxana adoo ku dhajinaya ku wadi kartaa هذا فينا مدحيق مركب كي كلا مركب مريناي عادات ملهين لكن كان هذا ماشي أو تنت آن لهين ولي عادات كي ولي يركع من جد أخير وبص قلف معه لكن مركب بور عمله مركب واقعي أنت أسمع مهمة دي أنت أسمع سي هو شيء سوا قبص الموجود هذا قالوا بقى marka magacooda aan isku diray turki karoon loo bagay oo darmal lagu sii helay bidar wadkeeda kala waa amaansantiin insha Allah hada time ku waxa turki karoon istaan turki karoon ka faa'iideysta marka wali qof walba oo jaanis u haysto ka heli karo walaalkay ama walaashay ka faa'iideyso wallahi إلهي نو غرغاري إلى تركيا تنو عربنا الأمود إلهي نو غرغاري الحمد لله الحمد والشكر والملك لله إن الله نبارك بعد جروب نيجاتيف إيجان وسلامة إن شاء الله جروب لنا واحد جرو فيديو هاي أنا حاس عن كسر هذا ما شاء الله وعن هاي معها فيديو جي أو حاول نقضي تيك توك ما شاء الله fiirsashada badan la noqday Soomaali inay wada jiran yihiin oo dadka qaar ay ayaga dhan sex frustration ya ingiriiskiya maanta ka dhume inuu ku dhacay oo ayaga dhan bagalmi wax kale ay ku wada qafiifeen taas cadeynaysa mafahantay inta qofooda comment ka soo bixisay inta qofooda ka soo hadashay you can imagine qiyaasi kartid waxaan malaynayaa wuxuu marayaa 57,000 oo maraya inta qofood marka la yaab ma leh midin la yaabayo waxa arkay dad isoo dhacay isoo wacaayo qoraal isoo qoraay dhahay waxay leeyahay walaalo baashaan iska daa baashaan raganimadii u daran tahay darmaloolka madaxu dilaa akhiiran ma dhalaysaa naqane yaa siidii subhanallah Soomaali mariyolay subhanallah dhalmada ilaah baa keena dhalmada ilaah baa keena okay raganimada qofku waa wuxuu ilaahay siiyo warsaliidan iyo darmaloolaha madaxayga mariyay waxa ilaahay isii rabaa dhal rabanayga ma celi karaan raganimo aniga aan leeyahayna ma iga qaadi karaan waayo awoodaas ilaah baa isiiyay maalinta caloosha hooyaday ku jiray ma fahanta maalinta caloosha hooyaday ku jiray oo aan 5 bilood ah oo neefta leegu afuufay maalintaasoo ilaahay wax walba oo aniga istaahilo oo raganimadeeda maalintaasoo ilaahay siiyay haddii aqli tahay haddii caafimaad tahay
haddii wax aniga ii qoran ugu dhacaya ay tahay wax walba maalintaas looxul maxfuudka laygugu qoray ma fahamta soo marka baraada waa jiran tahay ama sister waa jiran tahay qofka aaminsan maanta inta badan dadka oo commentiga soo qoray raalli ahaada gabdho uma badna ragay u badan yihiin walaalkay waa jiran tahay ee isdaaweey horena waa ku idin dhahay haddana waa idin dhahaa dhakhtar mentally tag laanno psychology ahaana u jiran tahay ninka aaminsan maanta saliidan oo timaha soo bixinayso iyo dermarolkan oo saacidayo si uusan u furo dalooladii yaryaraayo xirxirmay laanno nin amaan loo wuxuu soo dhahay dalool ma laha madaxa tintaan intay ka soo baxday tintaan intay ka soo baxday waxaa ku ogaanaysaa inuusan dalool lahayn xaadaada markay qabow ku qabato maxay dhibca u yeelataa markaa qabow dareentid laanno ishi ee tinta kasoo baxday ku tusaysaa awoodeeda soo marka meelaa in lahayn ma jirto madaxaan ilalow leeyahay il kastana tinaa kasoo baxdo darmarolkan ishaasuu saacidayaa ilashaasuu furaa saliidaanna waa loogu soo talagalay inay soo saarto soo marka haddii macnahaaga adiga qofka walaalka ah oo waxa fiican sameynaya mucaarad ama qofka walaalka ah wuxuu asaga faa'iido ka arka walaalkiis la wadaagayo ka hor istaag macnahaaga ay tahay waa daalaysaa anaga hadaf aan leenahay hadafka aniga aan leeyahay shakhsiyan cabdifataax ahaan hadafkayga waxay tahay madaxayga sidiisa hore inuu igu soo laabta alxamdulilah qof allaala qofkii walaalkay ah oo aan caawi karo wixii karaankayga aniga aqoonteeda ah oo aan ka faa'iiday ama aan maanta ka garanayana inaan ku saacido without anything anigoo wax shuruuda ku xirin soo marka adigaadaan aaminsan saliidaan ama dhaliiskaa dhigayso ama ragnimada kaa qaadayso ama kana madhaliiskaa dhiga ama ragnimada kaa qaadayo baraada meel walba aad dunida ka joogtid u tag dhakhtar psychology u baahan tahay mentally ahaan ha lagu soo baaro si niyadda lagugu dhiso waxa kaa buuxa lagaaga tirtiro waa mahadsantii intaasaa idin leh marka meel walba aad joogtiin waa idin salaamaya waa ku dheeraada xoodaa mawdiicaas laakiin video dhan aan uga soo hadli doonaa youtube-kayga insha allah haddii ilaa yihahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu